بركاته وما سنتهاي مريم سعيد بلداجي وما سنتهاي مال كيرا يا نفتير الكا نوغلي سي وكما سنتهاي ما هذا إلها إسكالي وحن تكون هذه هنا مريم سعيد بلداجي ونوغلي سي مال كيرا مساجي كان الكا كويا لبيتنا كان وهدي له هدين هي ماي نو بنانو بيا كعبي إنه دي الله كتر ياهم مساجي كوما هنا هاي بيسا وما هنا الجسر وهواي طبعا كوما هنا halkan ay ujeedin waa tuulada Muguurta oo ku nool dad aad u fara badan taasoo loo qoday hal ceel hadda waxay ka cabadeen inuu ceelku ku yar yahay iyo masjidkoodan inuu u baahan yahay dayactir kulli haddana waxaan kaamirada ku arki doonaa dugsigooda quraanka aad u liitaa waayo waxa hadda nagu soo haboon xilli roobaad ah ilmaha markii la gaaro xilligan oo kale macallimiintu way kala fasaxaan waayo hooy ay kaga galaan roobka ma haystaan marka waa tuulo aad xalkeeda ilaahay og yahay marka walaalaha muslimiinta waxaan u sheegaynaa sida Maryan Saciid Beeldaaje ee kaalintan buuxda aga qaadatay ee aga geysatay ceelkan oo tuuladan ay u qoday walaalaha muslimiinta oo kale inay kaga kaalmeeyaan dugsiga aad u aga dhibaataysan yahay in dugsiga loogu xijiyo masaajidku wuxuu u baahan yahay dayactir gogol xumaa ka jirto qoloteenka asana sidoo kale waxay kaloo sheeganayeen oo cabashay kale sheeganayeen inay tuba dheer ay helaan oo qoloteenka biyaha u geyso sida ay weysa qaataan haddana waxaa ka hadli doona arintaas macalinka dugsiga hadduu ilaahay subxaanahu wa ta'aala karaamayo وارون مساجدك وهو رباط وبدر أول لجرش بركض لجيه بركض وان ويرتاي مركز دكسيرة إن لود نسوان لود اعتنا ربنا ومهم المهر بود وكذا درنا وقت وربنا وكذا درنا وكذا فتحنا وعدد بادي ودتك وعدد رفاسة عروت وعرور إسكا عرور يرير اور هذا أوقات جيسان روب كأي اور هذا مركز أنت ربنا إن لو كان يأر كلا وهل كان وحوي مساجد إضافنا هو المهر يوم بتلوج أر كذي اللي يسكت هذا وهذه يسكت حفاية معه والسلام ورحمة الله وبركاته. وما غزم بحاجة وما تتعجل حسن راسي في حولها إذا كانت جيدا الله عافية أنت سيد بالأجهان دالقان دافقوا وعرفنا إلى ما أنت يحترم حالا حلايك إلى ما هذا روح يالك تلقف وعرفنا مساجد إنه هذا يحترم قل إلى أمان منكم هذين أنت لا صعدت أنت إلى ملكاته kaasina wuxuu ahaa duqa ugu weyn ee tuulada oo ka warbixiyay baahida ay u qabeen ceelalka biyaha ah marka insha Allah kulleeyay haddana waxaan u sii gudbi doonaa dugsiga Quraanka Kariimka ah xaalad
xaaladiisa iyo xaalku ku sugan yahayna kulli waa